nin aad iyo aad iigu dheer magaciisana isagaa idin sheegay isagaana iskiin baraaya Cusmaan ku soo dhawow adoo magacaaga sheegayo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Ismaan Khalid Yuusuf waxaan ku noolahay London xaafadda Camden Eid Mubarak maxaa dadka u hambalyeynaysaa waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba wax Soomaali sheegta iyo muslimiintaba inaan dhaho ku ciid wanaagsan ilaahay ha idinka aqbalo bishii Ramadaan aad dhamaysateen ilaahay ha idin dambi dhaafo isku tiirsanaada mid ahaada meel aad joogtaanba barwaaqo ku nool laba noo hartay midda koowaad waxaan ku leeyahay dhalinyaradii reer Camden ku yaryaraa waxaan ugu ducaynaynaa dibkii waa ku batay tooreydii waa ku badatay iyagana u duceey abti waxa weeye su'aalaadu fiican magaaladan xaafadan Camden ee ka tirsan London waxay caan ku ahayd dibka iyo isdiridda iyo in dhibaatooyin fara badan ka dhacaan oo ay jeelasha inta badan loo dhaadhiciyo ilaahay waxaan uga baryayaa dhalinyarada inay soo hanuuniyo ilaahay soo hanuuniyo oo noqdaan kuwo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca okay hal mid baan lahaa Soomaaliya qabsi bay ka dhamaan weysay markiigan maxaa ugu duceynaynaa iyo rajadeena wallahi rajada Soomaaliya waxaan ilaahay ka baryayaa dib fara badan ayay Soomaaliya soo martay dalku soo maray qabsi siyaasadeed baa ka jira ilaahay doorashaa soo dhow ilaahay waxaan uga baryayaa in uu ilaahay madaxweyne uga dhigo kii ilaahay u dooro oo markaas ka saara dhibka iyo waxa ay ku jiraan iyo waxa ay tirsanayaanba oo ay meelay joogaanba noqdaanin dad ilaahay marka u horeysa xusuusta oo iska daaya dhibka iyo Soomaali wada siyaasiyiin ayaa ma taqaana meelay joogaanba siyaasadii bay involved ku noqdeen marka ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay dhibka ka saaro Usmaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa tankiina nin odaya oo ehel ah oo saaxiib ah oo Kensington West degan qaasaaneed Camden ku soo dhawow Cabdiqaadir adoo magacaaga sheegaya Cabdiqaadir Jaamac Faarax baa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah guud ahaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ha inaga aqbalo soonkii dalkeena waa u duceynaynaa in ilaahay dawlad hagaagsan inoo keeno baarlamaankan inkastoo oo aan tayadiisa ka shakisanaa haddana ilaah waxaan ka filaynaa inay inoo doortaan qofka danta iyo diinta iyo dadku ku jirto baan ilaahay ka baryaynaa guud ahaanna waan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dal iyo dibadba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كلمة كلام معنا كسي درستن للينيرة كمدن ديلك باكوبات يجنا دبعتني باكوبات يجنا وعود عينينا. للينيرة هرت مالمها ويصورونانيان حالك يجو معها سيدي سنددي هره سنة كان ويعني والدينتي waxay soo baranaysaa in ilmaha lala leeyahay ma sha Allah marka dhaqankayga waxbaanu ka bedelay hadaan Soomaalinahay waddankan 30 sanadood baanu joognaa waagi hore yaani waxaan u haysanay in sidii dalkeenii uu ahaa caruurta ay mas'uuliyadeeda ay nala qaybsanayaan cid walba laakiin marakan waxbarashadii caruurta waalidiinta Soomaaliyeed lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan tuushan bay sameeyaan waxay u geeyaan meelaha lagu sameeyo supplementary schoolska oo lagu taageero ciyaalka nolosha way soo fahmaysaa Soomaalidii marka caruurta dambiga gasha hadda ma nugu badna alxamdulillah way soo yaraanayaan group dhexe oo waxa jiray badkoodii naga xumaaday laakiin ilaahay waa noo soo hagaajinayaa ما شاء الله وحلينا كمدن دليردي كوميونيتي hadda si fiican buu isku haystaa waxaan leenahay shaqo badan bay qabteen reer Camden ciyaalkiina way fahmeen waqti badanna way siiyeen hooyadii aabihii ciyaalkii kulli way haystaan waxaan leenahay horumar horeyna loo socdo community-gana hal adkeeyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.